asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. soo dhowaada akhyaarta. waa weli waxaan ku guda jirnay barnaamijkii ku saabsanaa caruurta oo wakhtigii inoo saamixi waayey inaan dhammaystirno. tan waxay noqonaysaa qaybtii labaad. haddaadan dhegaysanin tii hore waxaan kugula talin lahaa inaad soo dhegaysatid. waxaa kaloo iyadana dhaawacyo badan u keeni kara caruurta in loo dareensiiyo inay culays weyn ku hayaan xagga macnaha ama dhaqaalaha ama wakhtiga ay ku hayaan. la yidhaahdo aad iyo aad baan kugu dhibtooday, waan kugu daalay, lacag badan baa iga kaa baxday, waad idaalisay. taasna waxay keenaysaa marka in hadhowdii baahidoodii ay sheegi kari waayaan, ay qarsadaan markii ay weynaadaan. marka arrintan dhaawac joogto ah uu ku noqdo. waxyaabaha kaloo dhaawaca u geysta waxaa ka mid ah in ilmaha lagu mathalo unhealthy comparisons, maaragtay in lagu mathalo dadka kale ee cunugii walaalka ahaa ama cunuga dariska kaa fiican. taas waxay keenaysaa marka inay iyagu mar kasta ay u arkaan wax kastoo ay sameeyaan inaysan inaaf ahayn, oo dadaal kastoo ay sameeyaan dad dhiman ay isu qaadanayaan. waxaa kaloo comparisonkan ka mid in xataa caruurta iyagii iyo walaalahood la isku mathalo, marka la yidhaahdo kanaa kaa fiican iyo kanaa kaa fiican. taas markaa waxay keeni kartaa jealousy ama masir oo iyaga dhexdooda isnacaan. markii ay weynaadaan xataa saameyn weyn kusii yeesha ayay keeni kartaa isnacaan oo isxishmeyn waayaan. waxaa kaloo iyaduna dhaawacyada u keeni kara caruurta in ereyo aad iyo aad uxun la caayo oo la yidhaahdo abusive words, la yidhaahdo sida maaragtay doqon baa tahay, stupid baa tahay, weligaa ma guulaysanaysid in la yidhaahdo. maxaa yeelay in ilmaha ay dhiirigeliyaan ayaa wanaagsan. waxyaabaha kaloo iyadana keeni kara dhaawaca joogtada oo qalbadooda ku reeba waxaa ka mid ah in loogu hanjabo in laga tago. waan kaa tegi doonaa, mar baan idinka dhan idinka tegi doonaa, waa weligiini ma arkaysaan. marka hadhowdii waxaa dhici karta caruurtii in ay ku koraan nolol cabsile in laga tago, oo xataa saameyn ku yeesha markay weynaadaan. xiriir hadday yeelan lahaayeenna ay arrintaas saameyn ku yeelato markaa xiriir bay yeelan waayaan, ama xiriir ma aragtay xun oo xataa aan toosnayn hadday yeeshaan inay ka tegi kari waayaan, ay ku adkaystaan cabsi in laga tegi doono darteed isugu dhejiyaan. waxaa kaloo iyadana ilmaha dhaawac ku keeni kara haddii inta wax laga ballanqaado, ballanqaadka faraha badan leh oo aan la oofinaynin, ina dhaawac buu ilmaha uu maaragtay ku reebaa. haddii aad matalan tidhaahdid waxaasaan ku gadayaa haddaad waxaan samaysid, ama halkaasaan ku wadaya, haddii tigii markii la gaarina aad arrintii ka baxdid oo aad tidhaahdid maalin kalean ka dhiganayna next time, taasu marka waxay keenaysaa inay ballantii aad oga baxday ay jebiso aaminaadii ay markaa caruurta ku aamini lahaayeen. so marka la isku soo duduubo, baaritaanku marku wuxuu sheegaya in haddii caruurta aan la tusin jeceyl iyo naxariis aan la tusin, oo xagga emotional maaragtay affection haddaan la tusin, iyo xataa materialistic wixii maaragtay ilmaha la siiyo oo kale loo awoodo, oo laga hagradaa iyadana inay maaragtay keeni karto in ay markay weynaadaan dhaawac weyn uu maskaxdooda ku reebmo ayaa dhici karta. tusaalooyinka fiican oo caruurta markay noqoto waxyaabaha materialska la dhaho, in waalidku u hagar baxaan caruurta markooda hore iyagoo yaryar, oo ay siiyaan waqti. haddii caruurtu ay rabaan inay game iyo wax dheelaan, ina ay u ogolaadaan aan la ciriirinin oo aan lagu qasbin in meel inta lagu xiro la yidhaahdo halkaa fadhiiso, aan la dhihin. waxyaabaha entertainmentiga sida cable tv-ga cartoonka iska fiirsanayaan loo ogolaado, sababtoo ah waa iska caruur. iyagu mar walba caruurnimadii waa inay soo maraan, caruurnimada soo maraan, iyadoo loo xakameynayo oo la barayo mas-uuliyadda ay leedahay. iskuulka hadduu waqtigiisi la gaaro, habeenkii waqtigii la seexanayo, waxna in loo ogolaado, waxna loo sameeyo xad loo sameeyo ayaa wanaagsan. sababtoo ah waxay keenaysaa in caruurta ay u arkaan in loo hagar baxayo aan waxba laga hagranin. in ilmaha haddii la siin karo vacation, loo wadi karo meelaha ay jecel yihiin loo wado. in ma aragtay wixii qarasha ilmaha gala aan laga hadlin oo aan la oran ilmihii baan ugu badan, aabo waan soo shaqeeyaa, ama hooyo anigu idinkaan idin soo shaqeeyaa, waxaan shaqeeya idinkaa qaata. marka aan laga hadlin oo la baro generosity-ga, sida maaragtay inay wax bixiyaan, iyagii lagu ababiyo mas-uuliyaddii. markaa la baro sidii wax loo bixin lahaa la baro, isla markaana la baro sidii ay waalidka ugu abaalgudi lahaayeenna iyagoo yar lagu bilaabo, oo la adeegsado ilmihii iyagoo yaryar la adeegsado, la yidhaahdo iisoo qaba kaale, lugtan ii riix kaale, dharkan iisoo qaba kaale, halkan soo fariiso. ilmihii maaragtay xoogaa connection
in la tuso, sababtoo ah iyagoo yar haddaadan ku ababin markaa waxaa dhici karaysa markay weynaadaan in ay fahmi karin oo ayan dulqaad u yeelan karin baa laga yaabaa. iyagoo yaryar haddii aad ka weydid in ay kuusoo adeegaan ama aad bari weydo, markay weynaadaan marka adigoo iska dhibaataysan baa waxaa dhici karaysa inay iyaguna dulqaad ay kuu yeelan waayaan. marka waktigaagii iyo agjoogidoodii iyo la hadlidoodii ayaa waxay kobcinaysaa in ay dhisaysaa. iyagoo yar haddii aad bartid ayaa waxay tusaysaa wixii adiga aad beri ka filaysid inay kuu sameeyaan. waxaa dhici karta in dhaqanka soomaalida iyo diintuna ay ka hadasho in ilmaha ay baari noqdaan. marka baarinimada lagu amraayo inay noqdaan oo la leeyahay diinta dhigaysa inaaf ma aha, kuma filna in la yidhaahdo waa waalidka waa inaad markasta adeecdaa, waa waalidka inaad u dulqaata, waa waalidka inaad wax tartaa markaad weynaatid. intaas keliya kuma filno oo waxaa loo baahan yahay in lagu soo ababiyo iyagoo yar. marka wixii haddaadan marka adiga barin dee hadhow surprise ay kugu noqoto inay caruurtii kaa dhaqaaqaan adigoo aad iyo aad ugu bahan ama xanuunsan oo ay ku hagarbixi waayaan, waxaa keenaysa iyagii oo yar ayaadan soo barin. waxaa jirta sheeko soomaaliya oo ma aragtay iska qaaya ahaan u malayn maayo sheeko dhacday inay tahay, laakiin saan u fahmay sheekada in laga wado wixii waalidkaa aad ku samayso ayay adiguna caruurtaada kugu samaynayaan. nin baa waxaa markaa dhacday baa layidhi, reer guraa bay ahaayeen dadka soomaalida, reer guraa bay u badnaan jireen. iyadoo safar lagu jiro oo geedi la yahay ayaa waxaa dhacday ilmihii wiilashii midkii ugu yaraa ayaa waxaa looga tegay odagii. marka odagu wuuna indhala waayeelna wuu ahaa, wuu socon waaye, way isku rafaadeen. marka maalintii oo dhan bay socdeen, dadkii kale waa ka socod dheereeyeen waa ka tageen oo iyagii waa gadaal bay u hareen. odagu markaa wuxuu dareemay maalintii oo dhan in wiilka dulqaad la-aan ayuu ka dareemay inuu dhibsanayay inuu odaga soo luudiyo oo uu soo socodsiiyo ayuu dhibsanayay. mar gabalkii uu dhici rabo ayaa wiilkii wuxuu yidhi aabbow de waa isku daalnay, adigana ma soconaysid, kuma qaadi karo, meeshii waa fogaatay, socodkii waa nagu dheeraaday, haddana de meelay reerka degeen ma aqaan inaan reerkii raadiyaan rabaayo, geedkan aabbow igu sug buu yidhi, ma og tahay. marka wiilkii markuu saa yidhi ayaa odagii baa wax fahmay oo markaa sir uu isagu markaa u qarsooneed ayuu u sheegay. marka wuxuu yidhi aabbow meesha aad ifariisisay geed hebel ma yahay? ha, halkaasna galbeed ma naga jirtaa, halkaasna waxaa ma naga jira? ilaa wuu indhala-aa wuxuu tilmaamsaday geedkii. ha aabbo waa geedkaas buu yidhi. markaasuu yidhi aabbow qoladka adiga ma lihid ee iska tag, laakiin waa kula dardaarmaya, fariin baan kugu dhaafaya, waxaad iga gaarsiisaa reerkii oo aad ku tiraahdaa aabe waxaan kaga imi meel hebel baan kaga imi, isagaana isoo fasaxay, wuxuuna ii sheegay baad leedahay buu ku yidhi sir ah in isaga aabihii hadda ka hor inuu isagu geedkaas isagoo indhala kaga tegay uu bahal ku cunay. marka ujeedada marka sheekada waxa weeyaan naxariis darrada odagu wiilka ka dareemay wax isagu samayn jiray bay ahayd. marka si haddaad u fiirisid waxay iska noqonaysaa wixii adig lagugu sameeyo ayaa adiguna ma aragtay waxaad samaysay ayaa adiguna caruurtaadu kugu samaynayaan ayay u eg tahay. laakiin haddii dhanka kale oo psychology ahaan loo fiiriyo waxaad markaa ka garanaysaa tarbiyadii oo waalidkii odagan aabihii inuu si fiican usoo tarbiyeynin naxariis iyo connection inayan lahayn isaga iyo wiilkiisii, kanna sidoo kale in connection in caruurtiisi una la nahayn. marka naxariis iyo isku dulqaadasho iyo wax isku hagarbixid la yidhaha meeshii ma jiraan. saasaa marka keenaysa wixii cycle bay iska noqonayaan. waxay noqonaysaa in adigiina aadan barin ilmahaagii qaabkay kuula dhaqmi lahaayeen, iyaguna ilmahoodii inayna sii barin. waxay keenaysaa in nafsi waxaan kaarmada la yidhahdo ay soo laalaabato oo sidaa ay u muuqato ayaa dhici karaysa haddii marka aad caruurtaada ka weydid wixii aad ka rabtid ama sidii adiga aad rabtay in noqon waayaan. waxaad ogaataa in adiga aad caruurtan dhashay oo markii ay yaraayeen lagaa rabay inaad soo kobcisid maskaxdooda.